marka gurigeenu rinjigiisu fuqfuqo waxaan u yeernaa farsamayaqaan isla markaana dib ayaan u cusboonaysiinaa rinjigii guriga. marka telefoonkeenu batarigiisu hoos u dhac ku yimaadana fuundiga ayaan la doonanaa si aan batarigii uga bedelno oo aan u cusboonaysiino telefoonkii. marka gaarigeenna aan in muddo ku soconnana waxaan la aadnaa surface-ka si aan uga bedelno oilkii ama saliidii iyo wax kasta u baahnaa in laga bedelo oo aan dib ugu cusboonaysiino. ma laga yaabaa in nolosheennuna sidoo kale tahay? kulankeenna maanta kelmadiisu waxay tahay sidee loo dayactiraa nolosha. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. dunidan aynu ku nool nahay wax kasta, fikrad, technology, electronic, yani wax kasta waxay leeyihiin wax loo yaqaano dawrad xayaa ama meerto nololeed ama life cycle. maxaan ka wadaa? waxaan ka wadaa wax walba waxay leeyihiin xilli ay bilowdaan oo ay dhashaan iyo xilli ay dhammaadaan oo ay dhintaan. tusaale ahaan yaa xasuusta telefoonkii loo yaqaanay Nokia 3310? qof hadda haysta ma jira ama isticmaala? amaba qof hadda qaadanaya oo jeclaanaya inuu adeegsado xilligan aan joognay casrigan ma jira? waa maya. sababtu waa maxay? waxaa dhammaaday meertadiisii nololeed ama dawrad xayaatadiisii, life cycle-kiisii ayaa dhammaaday. wuxuuna ahaa ujeed ka mida ujeedooyinka ay u taagneed shirkadii Nokia loo yaqaanay. oo Nokia isaga kaliya kuma ekaanin, waxay soo saartay telefoonno kale si ay u sii jirto. innaga bini aadamkaana sidoo kale waxaan leenahay life cycle ama meerto nololeed. meerto nololeed weyn oo ah goortaan dhalanay iyo goorta aan dhimanayno, iyo meertooyin yaryar oo ku dhex jira. meertada nololeed ee qofka bini aadamka ahina waxay ku xiran tahay ahdaaftiisa iyo ujeedooyinka uu rabo inuu noloshiisa gaaro. markasta oo aad cusboonaysiiso ujeedooyinka noloshaada iyo ahdaaftaadana waa markasta oo cycle cusub iyo meerto cusub ay ku abuuranto. tusaale ahaan shirkadda hadda aan ka hadlayno kale Nokia, haddii aysan cusboonaysiin lahayn oo telefoonno kale oo ka dambeeyay 3310 aysan keeni lahayn, ayadaa khadka ka bixi lahayd. inagoo weliba og in xilliyada kamida ay dib u dhac u ku yimid ama khadka ay ka baxay sababtoo amaysan isdayactirin oo amaysan iscusboonaysiinin, oo dadkii oo touch screen isticmaalaya ama khadkii touch screen-ko la bilaabay ayay weli waxay taagneed nambaro telefoon leh. sidaas si lamida adigana marka aadan cusboonaysiinaynin ood naftaada aad dayactiraynin oo ujeedooyinkii nolosha aad lahayd aadan cusboonaysiinaynin, qaaraad gaartay qaaraa kuu dhiman, marka aad kuwa xaqiijisa aad kuwa cusub aadan dib u yagleynaynin u bilaabaynin, waxaa kugu bilaabanaya in aad suuqa ka baxdo oo aad nolosha ka dhacdo. tusaale ahaan waxaa ahdaaftaada iyo ujeedooyinkaaga ka mid ahaa inaad guursato. waad guursatay اسبوعي كواد 10 maalin كواد ama waxa ay u bixiyeen maaragtay bisha malabka soo dhamaatay. خلاص noloshii waxay noqonaysaa nolol iska degan oo caajis ah, aan wax cusub lahayn, horumar lahayn. ma tahay mise maaha? لأن cycle-kii iyo meertadii ayaa soo wareegatay oo soo degtay, adigana wax dayactira maadan samaynin. inta badan dadka waxay ku mashquulsan yihiin oo ay dayactiraan oo ay dhaldhalaaliyaan. waa maxay? waxa iyaga ka baxsan gurigooda rinjigay ka bedelayaan, gaarigooda oilka iyo wixii ka bedelayaan, telefoonada maxaa soo baxay 2021 maanta oo dhan waa lagu mashquulsan yahay. laakiin naftaada xagee ku ogaatay? naftaada ma dayactirtay? iyada boorka ma ka jaftay? maxaad ka bedeshay? cidna isma weydiinayso. haddaba noloshaada iyo naftaada waxay u baahan tahay inaad si joogto ah u dayactirto, sababtoo ah cycle-kan mar walba waa wareeganaya ilaa marka dambe aad ku tagto dhamaadka adigoon waxba haynin, waxbana aadan samaynin. tusaale haddaan u soo qaadano hooyo iyo aabe 3 caruur dhalay, waa ay koriyeen, way barbaariyeen, waxbay bareen, nololay u dhiseen, ila dhaqaalay u sameeyeen. kadib waxay yiraahdeen war hebelow ha heblaayo maxaa noo haray?
oo ilmaheenni waa wada weynaadayso in loo guuriyo maaha kan weyn aan ku bilowno hebel kaalay ama heblaayo waa loo guuriyey kii labaada loo guuriyey la soco cycle-kii waa degayaa u fiirso kii saddexaaday u guuriyeen markay u guuriyaan saddexdooda maxay isleeyihiin alxamdulillaah ilmaheenni waa u wada guurinay reeraan u dhisnay qof walba meelaa la dejiyey su u shaqaysan lahaa waa yaqaanaa dhaqaale waan u sameynay tusbaxooday qaadanayaan soo maaha markaa wixii ka dambeeya oo waxay bilaabanayaan inay iska wardiyaan oo halkaa kursi gaara loo dhigo weysadana loo diyaariyo markaasna waxaan u bixinaynaa waa howlgabeen retire oo hebel noqday heblaayo waa howlgabtay ayaan leenahay soo maaha markaasay si saxa nolosha uga dhacaan marka oo isu diyaariyaan inay dhintaan keliya wax kale in uma dhina sababtoo ahdaaftoodii iyo wixii ay u noolaayeen oo ay sameynayeen waa u soo dhamaatay ilmahoodii waa u guuriyeen waana hadafkii ugu dambeeyay lahaayeen khalaas iriddu waa soo xiran laakiin marka aad mar walba oo life cycle-ku hoos u sii dhacay aad sii cusboonaysiinayso waxaad ku jirtaa inaad dib u dayactirayso mar walba noloshaadii oo aad fiirinayso xagee u baahan in la dhalaaliyo xagee u baahan in sare loo qaado xagee u baahan inaan iska dhiso oo alam iyo xanuun uu jiro ku dhaqaajinaya had iyo gooraale tusaale ahaan dadka ee jiimka iyo aada tusaale ahaan birahan la qaadayo culus iyo waxyaabahaas waxa ay xanuunkaas u marayaan iyo murqahan ku xanuunaya marka waa maxay xanuunkaas xanuun ka weyn oo ku riixaya qofkan ayaa jira inta badan oo tusaale ahaan gabadhii kale waxay rabtaa inay maaragtay sympathetic iska dhigto isneele iska dhigto isdhuubto ama wiilkii kale wuxuu rabaa inuu murqo samaysto oo casriga la jaan qaado ama waxa laga yaabaa xilliyada kamid in labadoodaba lagu ceebeeyay qaabka jirkooda ruuxan sida isku dhaxyacsan oo cayilan ama ruuxan sidaan in lagu yiriyaa laga yaabaa xanuunkaas hore marka ayaa wuxuu ku riixayaa had iyo gooraale inay ay wadaan laakiin sidaad u socotid oo life cycle-ka iyo maternal u socoto markii aad xaqiijiso ama murqihiisa ama iscaataysid waxaad dareemaysaa okay I'm fine waan sameeyay wixii liiga rabay waa fiicanahay wax kale u baahanahay malaha halkaas markaa waxa ka bilaabanaya caajis in life cycle-ki dhinto halka ayuu ka bilaabanaya laakiin waxa garab socda inaad sidaad ku noqonaysid oo gabadhiyo kale wixii ay iska saareys meeshii ay caatinimada ay raadinayso meesha ka baxayso oo cayilnideeda u soo laabanayso وعادت حليمة إلى عادتها القديمة سيدي هور إنه قف كسر نقنع مركز سي أد وجوكتي سو لايف سكال كو حب عن تاعي باهيدو إنه مرول با يجوكت تاعي إن وباهج يجوكت مرول با أقول هذا مركو لايف سايكل كان إياه ماركتي مرتين ولا سيد دقيس إن مرتين ولا كلا سب أد بالعوضة si aad u joogtiso sida daraadeed qofka aqliga badan waa mid ka mar walba marka noloshiisu ay hoos u sii dagayso ama ujeedooyin kale intuu xaqiijiyo oo hoos u caajis uu dareemay ama inuu waxba faa'iideen uu dareemay ama shaqada iyo waxa uu haya inay waxba u soo kordhinayaan markuu dareemo isku daya inuu create gareeyo oo uu abuuro hadaf cusub ujeedo cusub si cycle-ki uu dib mar kale ugu soo wareego كان دقن كأهي وكان بس ده هالكاسة إيجا أكاتو الحمد لله إسنيبا ما هتسند